kusoo dhawaw muuqaalkan waxaan kugula wadaagaynaa qaabka loo adeegsado Hurbad app. Hurbad app waxaa kala soo degi kartaa App Store-ka ama Google Play-ga. Hadda Google Play oo kala tagay waxaan ku qoray mobilkayga Android-ka waa Hurbad. Kadib Hurbad app ay soo baxda hadda waa igu jiray, adiga hadduu kugu jiro wuxuu ku dhihi doonaa halkan install. Aniga hadda wuxuu leeyahay open maadaama uu igu jiro, marka open ayaan leeyahay. Marka la soo degto appka wuxuu ku weydiinayaa account-kaaga gal. account-ka marka inaad adigu taqaano ayaa laga doonayaa oo ah inaad taqaano username-kaaga iyo password-kaaga. Hadda username-kayga aniga waa xirsi 24, password-kayguna waa la mid, waa iska password kooban. Sidaas waan ku gali karaa, waa wax iska kooban. Kadib waxaan leeyahay I have read and agree. Kadib sidaa haddii kale waxaan rabaa email-kayga iyo waxaan ku gali karaa iyo password-kaas. Marka password-ku waa isku mid mar walba, balse email-kaaga ama username-kaaga kii aad doontaad isticmaali kartaa. Halkan ama email ku qor ama username ku qor. Hadda password-kaygina waa kan. Marka waxaan samaynayaa inaan idhaahdo login. account-kaygii baa la keenay, login ayaan idhi, waa account-kaygii baa la keenay, sidaan buu noqday. Kadib waxaad arkaysaa halkan koorsooyinka aniga hadda Hurbad app ayaa la ii soo qoray. Halkan koorsooyinkayga waxaa la yidhi my courses. Halkaana waxaa ku qoran latest courses ee koorsooyinka ugu dambeeya ayaan iibsan karaa haddaan rabo. Haddaan rabo koorsooyinka ku jira madashoo dhan haddaan rabo inaan arko, halkan baan ku dhufan karaa oo waxaan dhihi karaa waxaan dhihi karaa inaan tago halkan ay ku qoran tahay courses ayaan tegi karaa. Okay, courses aan ku dhuftay. Koorsooyinka Hurbad oo dhan baan arki karaa marka Hurbad shop. Halkan waxaan dhihi karaa sort by new oo waxaad iskugu aadisaa sida ay ugu dambeeyeen oo sort by latest ayaan dooran karaa oo koorsooyinkii ugu dambeeyay ii door. Marka koorsooyinkii ugu dambeeyay la isku aadinayaa sidaas u kala dambeeyay. Marka waa ka koorsadii ugu dambeeyay waa koorsadan baa ku xigtay, koorsadan baa ku xigta, koorsadan baa ku xigta, sidaas u soconayaan. Account-kaaga marka rabto inaad ku laabato student dashboard baa tagaysaa ama waxa loo yaqaano halkan student dashboard baa ku dhufanaysaa oo home ah. Kadib waxa ku soo baxaysa halkan oo ay ku qoran tahay my courses. Haddaan saa ugu dhufto inaad see all my courses haddaan dhaho ayagoo dhan itus, halkan waxaa la itusayaa koorsooyinka jiroo dhan. Marka haddaan saa rabin waxaan samayn karaa inaan tago my profile, kadib aan tago courses. Saasaa fiican. Marka haddii aan tago courses koorsooyinka dhan baa itusaya. Haddii aan tago all coursesna waxuu itusayaa koorsooyinka dhan waa iga wada xiran yihiin. Balse waxaa fiican profile-kaaga inta tagto inaad halkan ku dhufato ay ku qoran tahay courses ee meesha adiga koorsadaada ay hoos timaado. Courses-kaaga ku dhufanaysaa, kadib labada koorso adiga halkaa ka diiwaan gashantaa kuu soo baxaysa. haddii kale waxaad samayn kartaa gadaal inta u laabato inaad koorsooyinkaaga halkan bidix iyo midig aad u kala socoto adoo markaa bidix iyo midig u kala wadaya. Hadda laba koorso kaliya igu jirta, koorsadan Windows 11 iyo waxa igu jira koorsadan WordPress. Okay, gadaal hadda u laabto hadda koorsadan Windows 11 aan furo waan daawo karaa koorsada. Waxaan dhihi karaa start course ee koorsada ii bilaaw. Okay, saa u jeedo koorsada waa la ii bilaabay. cashirkeeda koowaad ayaan ka bilaabayaa oo ah Windows 11 editions. kadib waxaan leeyahay play oo cashirka caadi buu igu daarmaya waa ka caadi buu igu daarmay. haddaa u fiirsato caadi buu igu daarmay cashirka. hadda marka waxaan leeyahay pause, cashirka waa istaajin karaa haddaan rabo. kadib waxaan dhihi karaa inaan dhaho next, cashirka xiga igee, asagana cashirka xigaa la igeynaya. marka waxaa jirta arday badan oo na weydiisa macallin Hurbad app aan isticmaalaa mar khadka waa igu yar yahay, sidee usoo degsan karaa koorsada adoo Hurbad app aan u adeegsanaya. marka koorsada ku dhufato halkaa mujeeda ay ku qoran tahay daruurta oo kale, halkaa daruurta u eg calaamadaas daruurta u eg ayaad ku dhufan kartaa haddaan rabto inaad offline aad ku daawato. Okay, marka koorsada saa ugu jirta marka haddii halkaa aad taabato ay ku qoran tahay calaamadaas daruurta u eg, haddaa saa u taabato wuxuu kuu samaynaya wax la yidhahdo download. marka saa u jeedo waxaa wareegaya halkan waa percentage, soo wareegaysa uma jeedid oo wareegsanaya. markuu dhammeeyo calaamad wuxuu saarayaa tig oo kale ah oo macnaheedu ay tahay koorsadaani waa available offline oo waxaad ku daawo kartaa adoona khadka kuu furnayn ama daytadaada aysan kuu furnayn ama wifi aan ku xirnayn ayaad ku daawo kartaa si loo kala kombiyuutarkaaga oo isagoonan aadin markaa serverka inuu kasoo xigto oo markaasaa u daawato oo khadna kaaga baahnayn. marka hadda waa sugaynaa percentagekaas markuu dhammaado 100% tago ayaan markaa kadib ku tusayaa qaabka ay offline-ka u shaqayso. Okay, marka sidaa ujeeda halkan wuxuu ku leeyahay waa downloaded oo koorsadaani waa hadda waa offline, waa ku daawo kartaa oo downloaday ku dhacday. marka dal haddaa u laabano oo aad tagto koorsada labada koorso fiiri, midaana waa mid online ku daawanayso, midaan cagaarka noqotana waa mid offline ku daawo karto oo waxa kuu saarmatay tig. tanna falaar hoos fiirinaysa ku taala, tanna waxaa saaran calaamada tigta ah oo laga wado offline available way. tanna waa online kaliya aad ku daawo kartaa internet u baahan tahay. Okay, markaa saa samayno waxaan ku tusayaa markaa qaabka offline ahaan ugu daawo karna. hadda saa u jeedo wifi-gayga waa off-aan ka dhigayaa, daytadeydana off-aan ka dhigayaa oo daytada iyo wifi-ga labadaba waan xiray si aan kuu tuso. kadib waxaan samaynayaa Hurbad app inaan asagana xiro, asaga dhanba inaan xiro. kadib Hurbad app aan soo furo, u fiirso wuxuu leeyahay no internet connection. soo ma jeedid halkan waxaa soo qormatay kore no internet connection aa soo qormatay si fiican. marka koorsadan grey out laga dhiga maxaa yeelay internet u baahan tahay, tanna internet u baahna ee waa koorso offline available ku ah. waxaan leeyahay marka start course
koorsada ii bilow waxaan furayaa cashirkan oo kale hadda play aan leeyahay waa ka hadaan rabo hore u gudbi karaa hadaan rabo gadaal u gudbi karaa hadaan rabo hore u gudbi karaa cashir ku xogaan tagi karaa waa ka cashirada dhan waa ii daarmayaan ay ko full screen hatta waan ka dhigan karaa hadaan rabo hadaan full screen ka waa ka bixi karaa gadaal u laaban karaa hadaan rabo full screen ka waa ka baxay hadana waxa leeyahay next cashirka xiga hadana cashirka xiga hadana cashirka xiga cashirada hatta si kuwiga ay u soo baxay markay offline yihiin maxaa yeelay local ayay ku yihiin mobilkaaga cashirada maxaa ka wada local ay ku yihiin mobilkaaga haddaa tagto storage-ka mobilkaaga aniga hadda waxaan isticmaalaya Android adiga waa ka duwanaa karaa kaagu haddii aan tago Abyss oo rabo storage-ka inaan arko inta uga qaatay abkaani hadda maadaama wax ku soo dejiyay waxaan rabaa inaan wax yar idin tuso Hurbad tag meeqa megabyte ay noqoto fiiri Hurbad hadda waxa uu aniga iga qaatay waa how many megabyte waaye datadiisa waxa lagu yiri abka horta size-kiisu asagu waa intaas qudhiisu waa 90 megabyte iskaba dhehba oo 89.8 daytada oo hayo oo laga wada software-ka hadda aan ku soo dejino Windows 11 oo ah waa koorso yar ee ah 30 iyo dhowr cashir weeye 35 cashir meelahaas inay tahay filaya 400 iyo waxay qaadatay 64 megabyte totalka marka size-ka waa intaas marka mar walbeed koorso soo dejido abkaaga size-kiisu waa sii weynaanaya haddii aan tagno device-ka ee aan tagno storage-ka mobilkan hadda fiiri mobilkayga aniga waxa la yiri 500 iyo 12 gigabyte weeye ama 512 GB 512 gigabyte waxa available ah baa la yiri mobilkaaga hadda mar walba waxa lagu sheegaa waxa inta ku hartay waxaan isticmaalay in ka badan half-keed runtii oo waxa ii dhiman hadda 222 gigabyte available ah inta uu ii ogol yahay marka labadaas 100 iyo 22 gigabyte waxay ku xiran tahay daytada isticmaalaya picture-da videoyada igu jira iyo koorsooyinka aan soo degsan doono marka mar walba koorso weyn aan soo dejido dhowr gigabyte bay qaadanaysaa marka internetka furanaynaa waxaan leenahay noo fur wifi-ga waxaan noo furtaa daytada halkaan baan tagaynaa we are back online hadda okay online aan ku soo laabanay marka sidaas ayaa loo isticmaalaa Hurbad app haddaan rabto inaan offline ahaan u isticmaasho koorsadan waa ku qanciyay offline ahaan ku isticmaalnay tanna online kaliya ku shaqeynaa fiiri marka koorso kala rabtaa inaad iibsato tusaale WordPress aad baratay waxaa rabtaa inaad iibsato koorsada ku xigtay badanaa latest courses ayaad ka fiiri kartaa koorsada ku xigta badanaa WordPress waxa lagu xujiyaa Elementor kadib WooCommerce waa sida web design-ka loo barto marka hadda halkaan ka raadinayna Elementor koorsooyinka ugu dambeeyay inuu ku jiro haddaan fiirino Elementor ma ku jira waa fiirinaynaa kuma uu jiro hadda bogaan marka waxaad samayn kartaa inaad tagto courses kadib halka ay u socoto aad tiraahdo koorsooyinka sort by inaad tiraahdo latest courses itus badana koorsooyinka cusub oo soo hosgali doona okay kora u soconaynaa marka koorsooyinka cusub ayna loo keenay waa kana Elementor meelahan soo gali doona u fiirso waa ka Elementor waa mar dhaw la sameeyay asaga update lagu sameeyay halka waa ka dooran kartaa haddii aad halkaan rabin inaad ka doorato badana waxa samayn kartaa in aad website-ka inta tagto ka soo fiiriso koorsada ku xigta section walba ama xirfad walba koorsooyinka sida la isku xijinayo waa la sheegay kadib waxa ku dhufanaysa Elementor hadda tusaale kale wuxuu ku geynayaa marka si toosa course page-ka waxa leedahay marka hadda baro ayaa leedahay koorsada hadda baro $59 joogtaa baa lagu yiri koorsadan foomka lagu geynaya waa ku buuxa uma baahan in hadda kadib buuxiso wixii ka soo raaca iska bixi koorsadan hadda iga soo raacday waa iska bixinaya totalka iska fiiri waxay la mid tahay adoo website-ka wax ka iibsanaya abka soo wax ugu iibsan kartaa waxa leedahay proceed to check out kadib halkaan lagu keenaya kadib hoos ay u socoto ayaa waxa leedahay manual payment ku bixinaya ama Wafi Pay ama credit card ka rabta dooro kadib waxa leedahay I have read and agree kadib waxa leedahay hadda dalbo okay markaas aad u dalbato koorsada automatically waa ay ku dalban tahay marka waxa lagu yiri WhatsApp marka la soo xiriir qaabka lacagta u bixisa noo soo sheeg marka hadaan dhaho back kadaal hadaan u laabto dhowr jeer oo aan tago dashboard-kayga halkaan ayay ii soo galaysaa marka la ii soo fasaxo fiiri waa la ii soo fasaxay halkaan ay soo gashay maxaa yeelay koorsadan ayaa ii soo gashay fiiri koorsa saddexaad ii soo gashay marka meeqa koorsa hadda igu jirta saana wadi karaa sida Conosol kale oo geesgees iyo badagaagaala u socon kara hadaan rabo kadib waxa leeyahay Elementor aan rabaa inaan bilaabo Elementor kale ii soo gashay kadib waxa leeyahay start course marka sidaas loo isticmaalaa Hurbad app ama offline ahaan u baro ama koorso ka dhex iibso ama cashirkaaga ku daawo asagoo online Hurbad app waa kaas koorsooyinka ugu dambeeyay halkaan ka helay bog hore hadaan rabto koorsooyinka website-ka dhan halkaan ay ku jiraan waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doonto mahadsanid mudane ama marwo